بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الصحافة وسلامتها ما أنتي باره لبدي بركي دور نمو إنك أنيقا إيو حويها جود حزبي جود جير مدن سيد علي معلن عبد الله أو جوجنا هوتيل مكة المكرمة وحلي قدو أي تهي ورنتي أن لفظ إنه نمان سياسيين إيو حلي بانو كنتي أن لقدينيني حلي بانو أقل قولها شعبك كترسن أيا وحنا صور ري هوتيلك صور ري ciidamo afduuban oo sida la sheegay ka tirsan hay'adda nabad sugidda iyo amniga qaranka ee loo yaqaan NISA waxa watay sarkaal ka tirsan hay'adda oo madax u ahaa oo la yiraahdo Farxaan Maxamuud Qaroole sarkaalka ka tirsanaa wuxuu ka tirsan yahay saraakiishii maalintii hore shirki saxafi ee aan qabanay aniga iyo xogayaha aan dacweyne ayuu ka mid yahay sida la sheegay sarkaalka waxa telefoonka ugu jiray saraakiishii kale oo runtii asagana aan la dacweynay oo ka mid yahay Saadaq Umar Xasan Saadaq John oo ah taliyaha gobolka Banaadir NISA iyo jaamac iyo ragii kale oo ay laftooda aan dacweynay oo ay ka tirsan yihiin xafiiska madaxweynaha mudane Fahad Yaasin iyo ragii kale oo markii horeba oon soo amarnay oo dacwadii aan ka geynay maxkamadda xilliga ay soo galeen runtii anagu waa iska qadeynaynay wax abaabul siyaasadeed iyo wax aan ku jirnay midna maysan jirin meeshii anagoo qadeynayna ayaa waxa soo galay ilaa 30 askari oo ka tirsan ciidamada afduubka ah ciidamadii markay soo galeen waxay noo wada qabteen waxay hansab gareeyeen waxay yiraahdeen mobiiladina dhiga waxay yiraahdeen isma dhaqaaji kartiin waxay yiraahdeen cid dhaqaaq karta ma lahan dadkii oo dhan mobiilada dhulka hal dhiga yiraahdeen si argagax leh ayay runtii nagu soo galeen kadibna markii ay dadkoo dhan ay hubka ay ka dhigeen mobiiladii iyo waxay ka baqayeen mindha masawiro in laga qaado sida muuqata wuxuu ahaa weerar iska sharci darro ah weeraradii hore oo 17 December uu dhacay ayuu la mid ahaa run ahaantiina wax marqaati qof walba u joogay ilaa 30 qofood ilaa dadkii hotel ku jiro dhan argagax ku dhacay ay ahayd kadibna markay ku jireen ilaa 5 daqiiqo 7 daqiiqo markay hotel ku dhex jireen oo meel walba baareen ayay waxay noo yimaadeen aniga xogayaha guud markaasay waxayna yiraahdeen labadan nin aan la ka baaro teleefoonadeeni ayay qaateen kadibna wayna baareen aniga waxaan weydiiyay maxaad nagu baaraysaa oo warqadii sharciga aad haysatay aaway ninka Farxaan la yiraahdo ayuu wuxuu igu yiri dalkan sharci kama jiro sharciga aaway sharci ma jiro laakiin amar dawladeedan qaba waxaan ku aniga amar dawladeed lagu baari karay waxaan rabaa sharcigii iyo maxkamadii ku soo dirtay ii sheeg hadii aad warqad haysatid waa ku raacaya marka waxaan ka baqnay runtii in la xabadeeyo inuu nadilo dan waa la cooperate gareynay wuuna baaray jirkeenu baaray wax buu naga waayay sidoo kale xogayaha guudna waa la baaray hotelka dhexdiisa aan la geeyay meeshii aan ku baaray dadkii oo runtiina wada fiirsanaya kadibna run ahaantii wana saaray hotel ayuu gaariga hotelka banaankiisa noo saaray labadeena kaliya dadka kale wuxuu ma dhaqaaqi kartiin markaan weydiinay maxaa naga rabtaa dawladda in kiisa dirto dhahay kadibna waana sii watay gaariguna saartay gaari qooqana oo askar afduuba u saaran tahay kadibna wuuna waday markii gaariga dhexdiisa aan saarnayna waxaan ku niri intee noo wadaa dawladda idii wadaa yiri askari amar la siiyaan ahay marka dad waxaan riwaayay dawladda noo geey waana leexiyay isgoyska dabka markaan marayno ayuu kor noo leexiyay dalcadda haddana kadib luuq uu nagu leexiyay sida naloo sheegay meel runtii dadka lagu asineed gareeyo oo meel luuq ah guri ah ayuu nagu leexiyay gaariga buu istaajiyay kadibna wuxuu yiri uu ka degay telefoon ku hadlay uu soo koray uu socday haddana telefoonku gaarigu istaajiyay markaas waxaan ku yiri war hay'adda dawladda dhanka naga xigtay ma nadil rabtaa nooma jawaabin anagu waxaan u qaadanay markaas in runtii nala khaarij rabo maadaama meeshu aysan ahayn jidkii weynaan oo ka leexdo luuq ay ahayd kadib waan soconay gaarigu istaajiyay mar walba gaarigu istaajinay uu ka degay telefoon wacay kulay madaxda soo dirto wacay kadibna sidaasaan waxaan ku soo laabanay ilaa jidka Via Library aan soo dhacnay gaarigu mar saddexaad ka degay markaas askartiisa wuxuu ku yiri iska siiba afduubka iska siibeen kadib wuxuu nagu soo leexiyay jidka
jidka markuu nagu soo leexiyey ayuu hoteelka hortiisana keenay markaas wuxuu dega kaas waxaan ku nidhi sharcigii iyo dawladda aad noo wada aaway waa la ka maarmay amar baan lahaa amarkii haddana amarkaa lasoo amray gaariga ka soo dega kaas waxaan ku nidhi aniga dawladda noo geey gaari askartu nagu dalbaday xoog nagu soo dejiyey markaan dhulka nimadan waxaan ku nidhi nasii teleefoonadeena nama uusan siin teleefoonadeena amar uma haysto yiri waana la tegey markaas sida ay wax u dhaceen waa sidaas waan haynaa sawiradii laga qaaday saxaafadan waa la wadaagi doonaa laga qaaday askarta ayagoo ku dhex jira hoteelka dhexdiisa wax sharci ah ilaa hadda nalooma sheegin wax dawladdu ay ka hadashay ilaa hadda ma naqaan wax baaris dawladdu ay ku dhawaaqday ilaa hadda ma aanan maqlin run ahaantii waa dareemi kartiin waa afduubkii jiray maalintaas iyo 17 December wixii dhacay iyo maanta wixii dhacay anaga askartii aan dacweynay oo runtii aan ku haynay inay runtii dawladda shaqada laga joojiyay aan niri oo niri maxkamadaha la horgeeyay isla ayagiya markaana soo weeraray waa dareemi kartaa amni inaan la dareemi karin ninkii aad maxkamadda geysay markii hore ku soo weeraray maantana ku soo weeraray barina wuxuu rabo sameey karaa assassinations ayaan aaminsanahay in lagu soo amray in la ku sameeyo iyo dil maxaa yeelay godka jilcoon nalama geen nalamana geen habar qadiijada nalama geen hay'adina wasuuda meelaha ka tirsan tahay nalama geen hay'ada bilis iyo hay'ada dambi baaris nama soo aadin xabsi dawladeed nalama geen de hadduu askari inta ka qabsado luuq uu leexsan karo inuu 5 xabadood kugu dhufsana waxay tahay male ayadoon la aqoon cidi soo amartay iyo cidi kale run ahaantii waa ka xunnahay sharci daradaas in ay runtii ay soo noqnoqotay inay wax iska caadiya noqotay waxaa muuqata inay gacanta ka baxday runtii hay'adaha amniga iyo niman siyaasiyiin oo dawladda ku dhex jira runtii inay isticmaalayaan sidaas ay wax u dhaceen inta hadii sheegana waxaan ku wareejinayaa mudane Said Cali Xogeya guud xisbiga oo asaguna runtii sida wax u dhacay iyo